ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا ليال دمانتين سودا هذا إن وحن جعلنا لها ورفر حد لينا إذا لو ذا دمانتين أو إن قبدي إن أنت يريد شلي children service مع هيئة عروض أيقاتين. الحمد لله على السقط دحى يا قبدي إلهي جعنت أمة الصومالية المسلمين كسوريتشي aad iyo aad baad u mahadsantiin dhammaantiin intiinii ka qayb qaadatay jaaliyadii isu soo baxday reer Columbus iyo caalamka oo aad nagala socoteen. ilaahay ajir iyo xasanaad ha idin siiyo. waxaan si gooni ugu mahadnaqayaa qaybaha kala duwan ee jaaliyadda culimada diinka, dumarka, dhalinyarada, ganacsatada, si gaar ah lawyer Ismaaciil iyo gudoomiyaha jaaliyadda Xasan Cumar Xasan Dheere. khayr far badan Allah idin siiyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. walaalayaal ولكن مسكين كأله أو إذن له وربحنتان يعني دلنا وذا جياه فرحض له الحقيقة حضرتان عروتي أنه لقاته سويدن دنمارك هولند كندا امريكان قربها مال والبعروت ولا سكاته حكينا ضيعه جاليات اسكو ما جرتو ضد كدبها الله ما جيران ضد هي انغا عروتان قادرينا ما جيران dad xataa xuquuqda haweenka iyo masaakiinta oo luqadda aan aqoon difaacay ma jiraan loo yara difaacay ma jiraan jaaliyad garab istaagaysa oo gabadhii waa la soo qabanaya hooyadii irbad baa lagu duraya waa waalantay daf laga dafaya wax ka daba hadlaya ma ay jiraan wax aad iyo aad aan uga naxay waxaa jirta dad loo yaqaano protected class of citizens boolisku hamoodina inay dagaal ku hayaan caruuraha iyo ma nacam waa qaadanayaan oo children service ay la yiraahdo jirta hay'ad caruuraha laakiin waxaa jirta dad la difaaco ayaa jira dadka tabarta yar birmageytada waa difaaca sharcigu waa difaaca ma sida Soomaaliya kale oo ummadda la qixinayo la kufsanayo la dilayo la dhacayo la boobayo la ciirsanayo wax ma yeeraanka iska gowracayo ma loo aan order ba ka jira marka waxaa jira dad loo yaqaan protected class of citizens. Protected class of citizens ودad la difaacayo waa dad xuquuqdoodii aan difaacan karin oo la difaacayo waxa kamid ah oo sharcigu si gooniya u ilaalinayo children ba kamid ah caruurta waxa kamid ah seniors ka kamid ah dadka da'da ama dadka waaweyn oo odayaalka iyo hooyooyinka iyo anagu aan iska dilayno iska dhacayna ayaa kamid ah protected class of citizens waxa kamid ah disabled persons. horta walaalayaal waxaan ka cudur daaranayaa telefoonadii xataa waa kala garan waayay yani shalay telefonkayga waa idin siiyey yani telefonkaygii waa qarxay messenger kastoo kale whatsapp kastoo kale wixii waan kala garan waaya marka mid aan fiiriyaan garan waaya gabadha warkeeda xamda iyo saan u kaalmeyn lahayn anigu lacagna ma qaban oo yani dadka kama aruurin dad badan oo dunida caalamka jooga Soomaalidu waa dad naxariis badan oo leh lacag baan soo diraynaana waan arkay marka waxaan idin socodsiinayaa habkaan lacagta u soo diri lahayn oo ah Xamda Maxamed Axmed Xaaji Saciid akoonka magaalada Columbus inaad gabadha ayada laftigeeda lacagteeda u soo dirtaan ma rabna wadaad ba lacagtii loo dhibayo lacagtii wadaadku waa kala reebay ama hebel baa loo dhibayo lacagtii waa kala reebay gabadha guri waad u godi kartaan oo waad dejin kartaan oo waad barwaaqayn kartaan oo garaad u godi kartaan oo masaaruuf baad u qori kartaan Allah idinka ajarsi waan ogaa dad fiican natiin laakiin gabadhu waxa ma qabto laakiin gudi kor joogto oo ayadii waardiyeeyo oo ilmihii warbixinta soo idinsiinaya horta aan tan ka hadlo marka walaalayaal protected class of citizens dadka sharcigu sida goonida u difaaco oo tabarta yar oo birmageytada waxa kamid ah caruurta oo ah tii hadda booliska waa la wacay ilma dayacano neglected child balda ilma la dayacay marka sharci boolisku assessment buu sameynaya oo iimaanaya oo fiirinaya laakiin dibka jiray muxuu ahaa gabadhan maxkamad kama qaadan ilmaha sidii aan kula doodayay booliskaba ama naagta aan kula doodayayba waxay rabeen marka meesha ay taagnaayeen waxay wacaysay supervisorkeeda oo ay leedahay naag waalan oo ilmaheedii aan dayacan yahay ayaan ilmihii ka qaadan warqadii baa la diyaarinaya marka warqadda la diyaarinaya boolisku waqtiga dheer uu meesha uu taagnaa warqadda la diyaarinaya warqadda booliska marka loola iimaanaya warqadda marka boolisku waa ilmihii waa qaaday xoog buu ku qaadaya yani barta case-ka lagu diyaarinayay ilaahay baa marka nawaafajiyay
inaan yur ka dhahno haddii ilaahay ku idmaayo dhurwaayadii aan ummadda isu soo baxday idinkuna aad soo ducaynayseen caalamka aad joogteen marka ilmihii xalay saqdi dhexe ayaa gabadhii ilaahay noo soo celiyey looyarka ismaaciil oo maasha allah nin dhalinyaro ah aad buu u dadaalay jaaliyaddu waa dadaashay guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed xasan cumar oo xaqiiqatan yacni ah nin jaaliyadda aad ugu dadaala oo ah isaga iyo looyarka aniga kale waa labada nin aad ugu dadaasha xasan cumar qofka lama xaqiro bani aadamka ah xabsiyada ninka taagan waa isaga guryaha hooyooyinka laga saarayo qofka taagan waa isaga qofkii waa argagixisa la dhaho qofka taagan oo qof kasta u imaanaya waa isaga wadaadkii la xiro qofka u taagan waa isaga laakiin jaaliyadii waa burburtay jaaliyadii waxay ku burburtay qabiil bay ku burburtay qabiil baan ku burburnay waxaan gaarnay in East African Community jaaliyad la yiraahdo oo Ethiopian ah inay ku shaqeysato magaca jaaliyadda Soomaaliyeed kadib markii jaaliyadii Soomaaliyeed qabiil ay kala tagtay xagga reer fulaan xagga reer hebel ninka reer hebel laga daayay reer hebel xagga u baxeen reer hebel xagga u baxeen sida ka jirta Yurub oo kale meel walba waa lagu baabaa marka yaa victims ah balaankii iyo dumarkii iyo carruurtii baa victims marka dadka sharcigu difaacay waxa kamid ah carruurta marka waa la difaaca walaalayaal wadanka kan Mareykanka inaguna carruurteena inaan difaacno waa loo baahan yahay oo qax aan ka dayno oo nabad darrada aan ka dayno oo qabyaaladda aan ka dayno oo hubka aan ku xambaarayna aan ka dayno oo ilaahay uga baqno subxaanahu wa ta'aala nabad baan u baahannahay senioriska waa la difaacaa oo sharciga qaanuunku waa difaacaa waxaa la difaacaa disabled persons waa dadka loo yaqaano protected class of citizens dadka sharcigu sida gaarka ah u difaaca Mareykanka dadka curyaamiinta ah ama maskaxda curyaanka ka ah ama xubnaha ka ah ama indhala ama dhagala ama lawala ama waa difaaca sharcigu wuxuu difaacaa emotionally challenged individuals dadka maskaxda laga gumaysto dadka maartay yani ciilka iyo carada la baday dadka maartay lagu tuntay dadka xuquuqdooda inta laga dhacay laga inkiray sharcigu difaaca nin baa nin dhacaya dilaya geelisu dhacaya loodisu dhacaya arigisu dhacaya la neeranahay baa lagu leeyahay nin baa loo imaanaya dharbaax lagala daalaya beerka laga garaacaya shan baa lagu tirinaya aabii hooyadii hortiisa lagu dilaya halkaas marka sida yaanyuurada saasiya gabar baa ninkeedii lagu hordilaya hadday afka kala qaadana baas baa afka looga tirinaya yani dadka marka qofkii marka waxaan dumar badan oo facebookyada ka qayraya oo le saasaa la ii galay sharcigu waa difaaca ama mid la kufsada ha aado ama mid la boobay ha aado ama dad la boobay ha aato ama dad la biro la qaystay ha aato ama dad beerahoodii guryahoodii la qaatay war sharcigu qof kasta oo yani maskaxdiisa iyo caqligiisa inta la dhacay la boobay loo xoog sheegtay haddana emotionkiisa iyo dareenkiisa iyo damiirkiisa la dilayo sharcigu waa difaacay waa mayeeraanka dadka iska dhacayo oo iska dilayo iska boobayo Soomaaliya oo dhan marka dadkaas u badanta meeqa qof baa la dilay meeqa qof baa inta la dilay waalidkood hantidoodii la dhacay meeqa qof baa maartay ilaa hadda hantidoodii la haysta meeqa qof baa maartay dilay ku idmaayo maalin walba aabihi la dilaya ama hooyadii la dilaya ama la qaxinaya ama maartay magaalooyinkeena Soomaaliya oo dhan meeqa maartay gabar intalan ba miskiin ah baa leeyahay yani waa wariye qabta adilay xira ninka kan waa wariye qabta ku tuura ninka kan wuu hadlay ku tuura yani dharbaax laga daalaya dadkii sharcigu marka waa difaacay dadka loo awood sheeganayo ama qofka inta la iska xirto sanado la iska haysanayo hadda waxa weeye waxyaalahan ka dhaxay waxa kamid ah kuma farxin in magaalada Boosaaso la weeraray hadday sayeshe erayadii 400 oo maxbuus waxa la yiri oo maxkamad sugayaal ah نعم إن بدن oo kamid argagixisa waa dhici karta inay yihiin saraakiil inay yihiin argagixisa laakiin haddana in badan oo aan case-koodi dhinac loo tuurin waxaan codsanayaa marka dadka xabsiyada laga buuxshay halka kan Mareykan 24 saac gudahood qofka maxkamad oo ay la keeno dadka maxkamadaha ilaa iyo Muqdisho iyo Hargeysa iyo Berbera iyo Burco iyo Caabud Waaq iyo Buuraxaawo iyo Garawe iyo Galkacyo iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo meel walba iyo Dhuusamareeb war dadkan maxkamadaha inta xabsiyada laga buuxiyo si arigii la iska xareysanayo maxkamada la keenaynin sharciga iyo qaanuunku iyo diinta islaamka waa difaacday dadka maxkamadaha la keeno qofku sharci wax ku cadiyiin hal waxa cadeeyo waa la shabaab ku cadeeyo lama cadda Soomaa sida waa la tuunsan yahay qofka Guantanamo Bay la iska xareysanaya waa khalad
marka sharcigu dadka uu sida gaarka u difaaca kamid caruurta children seniorska kamid disabled persons dadka curyaamiinta maskaxda ama jirka emotionally challenged individuals dadka inta loo xog shigto cabsida la geliyay oo maaragtay aan isdifaaci karin sharcigu waa difaacay religion dadka diinta wadankan waa lagu difaaca anigu muslim baan ahay inka diinteeda igu ceyrsanaya sharcigan maraykanka wuxuu qabaa in laga difaaco qofna diintiisa kuma ceyrsan kartid waa inaad marka dadka nabadgelisaan dadka Soomaali Kiristaanis sheegta oo inta soo fariista Ilaahay caayahaya oo Nabi Maxamed caayahaya oo Quraanka caayahaya oo diinta caayahaya xaq uma leedin waa in Facebookooda laga report gareeyo oo aad ka xirtaan hadii ay ku idmaayo taas sameeya hadii ay ku idmaayo ayagana in waxooda laga caayo nooma banaana ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم أنبياء أي عابدان النبي عيسى وجعلنا والنبي إلهي عبد الله ورسوله قال إني عبد الله نبي عيسى أدونك إلهي بانا هنرك يا صومالي فلا ورثوا الله يكسر سلحنا نكونوا فلا ورثوا قال هذا هو احنا قلنا حوي وحاكلوا الشرع وضن كان مريكا قال يا كلر تدك مدبك لو عبريو أما هو مدو أما هو عدان أما هو جدود الشرع هو الدفاعي marka people of color sharcigu waa difaacay marka dadka madowga la iska tooganayo ayagana si gooniya sharcigu ilaaliya hadii ay gudnaan race qofka yani qabiil lagu ceyrsado sharcigu waa difaacay marka nin baan dheer u leeyahay dadku iska leeynaya qoryaan haystaa buu leeyahay ama hubban haystaa ama la sheebelad baan haystaa wallahi waa idin dilayna waa idin leeynayna no sharciga afka ka garaacaya qabiilka la dheeraha تانجيال قصدينية شرعية كتمانية دولة كتمانية no one above the law عداني مدو ننكسر هي شرعية مجرم أما white supremacism ده أما black race ده عد شرعية كسرعية نسمى مجرته no مركا كلر كقفك لو عبرونه يو أما قبيلك أما رئيسك هذا رجع عليه شرعية قفك مسكين كدفاعية سيدو كله citizenship كله sharcigu dadka caynkaas midna ba violation uu sameeyay Trump oo yiri dadka dalka Mareykanka dad gooniya oo muslimiin ayaan u diiday waa sharci darro sharciga difaaciya dadkaas waa sharci darro shaqada dadka gooniya kama shaqeyn karaan wadanka u dhashay no marka waxa weeyaan war dadku sharci badan baa leedihiin oo xuquuqda sharciga uu dalku u ilaaliyay marka waa inaad barataan hadii ay ku idmaayo veteran status waxa loo yaqaano waxa weeyaan waa dadka halyeeyada ah فيريا شرعي مريكان سجونية يا دتك هالجميالك الدفاعي هالجميالك سجوني الدفاعي هالجميالك إنه مركان دفاع عنه يا ووالي هيو وكان إيو ورا أنا وهالجمانة هيو خل ضمن مسكين قال الله ده سمنا فارنا هيو أدون هالجمات كاكلنا وهالجمي دولة ديننا وهالجميال يا ولاش الصومالية وحوق دولكنا وهالجميال دولة ديننا عند سنو دعايات رخيص بنت عن كدينا دلكنا دورشها اللي قاعدوا سيستم اللي قالنا هلا قاعدوا هي حاكله ايربورك انا لودي علي مهدي ما كسو دوين لها انه نمنك مشرحين تابا هو بيريلقى الايربورك لودي وحاس واعب ميتك علي مهدي يعني wax kasoo dhaweynaya hubban la galaya war waxas waa ceeb kaalay qabuurahay maada kaalay ku tukada janaaso la idin ma diidin sheekh shariif waa taagna ma sha Allah madaxweynaha garabka isku haya yani ما شاء الله واتاقنا عبد حاش ما شاء الله مدحوينا قرب قسك قدومي مرسل waxa kasta meydkii baa tala siyaasadeynay war ilaahay ka baqa marka waxa weyn walaalayaal dadka xoog dalka ee dalka u dagaalama sharcigu si gooni u ilaaliya halyeeyadeena qaranka iyana la ku dirin qabiil kasto ay yihiin haramcad gorgor nisa hadii ay ku idmaayo danab booliiskeena war ciidamadeena hadaan nala ka dacaayadeeyo ma ciidamada Uganda rabnaa war ma ciidamada Tanzania rabnaa war ma ciidamada Kenya anaga shakina loo ka gelinaya yana la ka gelinin oo si gooni u ilaaliya dadka loo yaqaan protected class of citizens waana mid ugu dambaysa waan gabadhiiban warkeedu soo gudbaya genetic information dadka maaragtay jiinkooda ama genetic matalan ba aaba wuxuu dhalay ilmahaas cudur la iska qaado oo ilmuhu aabihi ka soo gudbaan oo ilmaha u gudbaan marka in la iska cirsado aabihiisa kansar qabay ama waa laga fiican yahay walaalayaal qof cudur haya in lagu cirsado oo lagu dilo
ولا لي ما دينت الإسلامكو وحين فرتينا قلنا حريصنا تدكاس أردن واردكي تدك جبوبي ضعفاء تدك تدك مساكين والصوماليين نسقر منه يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء صومالي جول عايز كدينه صومالي ولا لنا إيه البنا سكينا صومالي قبيل يبين ينين الكل انت كسر رجال كان يدين سوفرستا ضرب بلايا دعدي ورا حساسي وحبا يدين تلميسو نبط بانو باهنا دقال سكوية مربنا 2001 منا دقال مربنا ولا لمي عدالة إن الله يأمر بالعدل إلهي عدالة نفري حرمينا دلكينا دولة نمدينا دعاية الرخيص كابينتا بالتوك جدا مالا كلاب هاوسي فيسبوك تويتر ماسنجر ويب سايت حبا يدين تلميسا إلهي كعب صدر إن هذا السفر بانا هاي وحنوصل على قبل كله وقبر أيضا نستوكل إن عدلا يكود مايو بان أصعدها أيضا نك يدو عدلا يكود مايو عدلا يكود مايو أي كلا تجينا إلما عرورنا هذا الشيء إلى شرع إن مرك أمل لحى إن عدلا يكود مايو وحويا والسفر بانجليه إلهي نايق أجرسيو إن ولا ليالو مرك حويا هلا سجور مدو إن قبل الشرع عن قيلنا نواقني بوليس كلا ضدني أمدي شاريدي أن أدينا يكيد ما نواقني إذنكو أشر جريسين لا إذنك أجرسي أمال والبعد جرسين وركي سد دقدقو كفافي الله يركي بصبح هو يدي بصبح جناستي بصبح ذي شاريدي بصبح ذي كلين بمرتي صباحي فيري محاكا دعي وحد عطي دلك كان دتك حكومة حلو يغنى we the people شعبك سجالين أص صومالية إسبارو ما ديكرتو تورش ما ديدي كران نبدأ ما ديدي كران هرمرك ما ديدي كران على كعبسك ما ديدي كران وعلوي شيء ما ديدي كران ننقد دومية قبلها ديدي إنيو ما ديدي كران والله ما ديدي كران وأنا لصحيح يا كل قدنا وإيمانه يعني وراقينا وسو جالس already ولا صحيح أيوة سكوا حاجة مسك فورمولا ننتي كران مر ننتي دينا سبويلر وقصوده تورش العادية ما قلت عيدك حق دلكنه وحي حق لين يدولد أمنية إلى ليان ماشي حبة قش كتير هذا ماشي نين مافيا أو حبة ريدة هي إلا قبته واجب وهي إن دلك إلى لي واجب وهي لكن يان دورنا قفلوا بنينك أدو عدينيس صندوق أوريد ولا لو صوماليا وإنا أديروا طلعوا ولا لو قاري لكن دلك نجومينا نو إذا كحوق دلك ها إلى ليان هنا لا إلى لي ما ده حد إننا حرما وهنا وأستنقرن شن يتمنك بيشة يا شن يتمنك بيشة محكمة دي بدأ إنه طالع بدأنينا أنو دقالنا ينال كم مشغولين سلما أنت شرك فرمية أو صومالي دني وعشان يتمنك يعني دولة دبادة كولا ناكياتي نقال جيمس وون هوست وقول شفت يعني لما كان قبل هالك جاري واحد جارسي جارسي حالنا لقى جارسي بيش عالم جارسي يوروب جارسي وانا كان دولة يوروب جارسي الكاس دل كنا عندي فيها عنه يوروب ملهن أمريكا ملهن اتكلم ملهن أنا قاله ما قال سالف دل كنا عندي سنة دولتنا نتقرن أما يان دورنا ولا ليالو دور شهل هذا نبكر هلا تشوشيو دعاية بين ترخيص كنا هلا تشوشيو إلهنا هلا قبقوا دمركي عيالكي دلان وضع يعني رب العالمين هلا قبقوا أنا وقربوا وقضى يعني وضيال وكل عيال سوق ما كنا قلنا دمر هالشيء مسؤولية ما جرتوا نوال بقى بدأ على وش أبو حنا هي مركزه ما بيقى نبأ وحوي وحن مغلى قبر دليل رسالة مركان عجلة أندوبي إني ماشي لسويمت وحيلا أنا جيت كي شراطة من كل طيبة ما بقص علي ترجور يا عرق على بعرق كل ما يتر وأطلع في عنوي تصنع هذا واحد مسؤول أسجرين وعرورتي كل قرصنية وعرورتي كلا ورقبية وإلهي كلا بقية وبحرام بعرورتي إنها كان كل شيء مركز صومالية كلها هذا هو النرجع هاي قبر مسؤول هذا القرصنين وإلهي كبقيسة شهوة هذا إلى الصو صوماليا كصودا حق جيبياك دينا يقد ماي ان حمدة وحين وقبها أنت جرمد حمدة محمد حاج السعيد وهير بوصاصة جرمد بينه وقبها أنت وحات فرتان حوالده مقعيدة كالصقر مقالة كولومبوس أو هاي موالنا حبض مقبط وقبر أموله خاطير بدن بقى يصوعي خاطير تصوح أي شيء أموله عذر كل عاجره oo isla buuqaan umulow baa Soomaali lagu dhahaa maleynaya umulow idinka yaqaana gabadhu xanaana meelin cid umul bixisa meelin ehel iyo qaraabo ka naxaysa meelin runta tan sheegay ehelka banaanka soo dhigay booliskana wacay nacam
hadday isku buuqday ilmahana duruuf baa ka muuqatay ogow soomaali baa u wacay qurbihii soomaali baa kugu xiraya ka kula dhashaa ku xiraya wadaadka booliska kugu wacay masaajidka kugu wacay waxaan leeyahay ilaahay laga boqo ummaddu ha istaagto gabadha marka magaceeda waxaa la dhahaa aniga dad badan baa isoo wacay haddaan socdaa gobol kalaan u socdaa wallaahi anigu inaan been idiin sheegin haddaan socdaa lacagna anugu ma qabanaynin laakiin magaceeda ku soo qor xamda maxamed axmed xaaji saciid gabadha ku dhiban magaalada columbus gobolka ohio nacam looyarka ismaaciil oo kale gudoomiyaha jaaliyadda oo kale xasan cumar dhammaantood khayr allah siiyo dadka ehelka ah nacam lacagtaas loo aruurinayo in meel ammaano ay gasho oo gabadhii laftigeedii gabadhii xalay gabdha Soomaaliyeed baa qaaday guri baa la geeyay fiican in loo qubeeyay baan aaminsanahay in dharkii laga bedelay in gabadha niyadda loo dhiso dahab loo xiro loo labiso loo xiniyeeyo niyadda loo dhiso ilmaheedii ay aragto ilmihii waxa lagu wareejiyay walaasheed baa lagu wareejiyay walow khalad ay ahayd marka horeba ehelku inay gabadha guriga saaraan laakiin habaryarteed baa lagu wareejiyay habaryartu marka waa hooyo nabi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam alkhaalatu bimanzilati alum habaryartu waa hooyo marka taas waa inoo guul kulligeen alxamdulilah aan dhahno habaryarteed baa gabadhii saqiirka ahayd gacanta ku haysa gabadhii waa la soo badbaadiyey ma hubo gabadhu ilmaha aabbaha dhalay anugu ma hubo cid uu Soomaali ka yahay laakiin nin iska leh youtuber ah oo iga soo wacay Minnesota iga soo wacay oo aan jeclahay isla beesha ma jirteen inuu yahay oo ehelka iyo tolkayga ah wuxuu ii sheegay aabbaha ilmaha dhalay inuu ogaadeen yahay inuu ii sheegan jeclahay marka gabdha ogaadeen waxa soo wacay wayba ilmeeyeen waxay dheheenba alla inantanadii bay dheheen marka waxay dheheen waa gabadhaas waa garab istaagaynaa bay dhahayn marka qabiil gooniya maaha ama hooyada dhashay haato ama aniga haato oo ah miskiinkii alle oo ah ninka matala gabadha oo aabaheed oo kale ah oo ah walaalkeed oo kale ah waxaan leenahay marka walaalayaal qabiil maaha anagu qabiil ma naqaano laakiin kaliya waxaan inkugu sheegay litacaarafu sababto dad badan baa ii soo qoray waaya gabadhu yaa dhalay ninku yuu yahay taleefankii waa qarxay waxaan hadda arkayay walaalkay kabtan ayuub soo wacay khayr allah ku siiyo jazaaka allahu khayr walaalkay waa hadli doonaa insha allah inkastoo safarna aan ahay ولكن ونكسو عيا إن شاء الله مركا ولا ليال خير الله ينسيو هلو قرمدو حمدة وحيوبا أنت قري إنا أقدنو المهد اللي قادنا يو كبدا قري وأقدي كرنا قري أنا أقدنو هو يوين كبكالي الصوماليات الشنطة قاردود كل بني هو يدلانك إلا قرمدو رق الصوماليات ده سوقحي إلى هذا أنا بدو ديدا السوق قرمدة علومده وحنكلها سجارة إلهي كبقى ولا ليالو منبرك إذن كهست النبي محمد عليه الصلاة والسلام إذن كهفردية ولا ليالو لعقتي صومالي شايف كنا يكون شرتاه مالك لما شرت حوالي ده نك هيستوى وداد شركات دوي نك هيستوى وداد ان دهبشيل إيو هرمود إيو على بركة إيو تاج إيو وح هيستوى وداد ولا ليالو مال والبقى شوكتان إلى يجدون أبار بالله بابايا ورد العقتان وتقدم الإنسان إلهي كبقى مساجد يدا العقد لو أروريين إذن كاتشوه برنامج هويوين يدلان كاللو دفاعي وانا تمسان المهن أتكهر إيسان نكتوشي وحاس المهن لما قادن كرو طد اسكو حيران هدي لا يوروب ولا أمريكا لما قادن كرو لكن وحان جرين جاريات اسكو حيران ما جرتو ضد ديرن أو ديكرا بوليس حقو مالي المهي قاتد بوليس بحقو له ياكل بوليس بحقو له وما له حق ينقاتو وما له لكن ماله ضد هاللي كرام ماله وما ضد كي يورم وقرد أساس لو رجورية صوماليا ضد كي ما هاللي كران سقالني مشرح مدعوين أنا ما السلطة أود الله محيط مشرح مدعوين أود ماله حتى ورقاقي أرشي يقولين لما قبل مشرح معنا أود ساملي متيد وبين كخيب قال شركة سكفريست تقول بتسوي يلا هذا لكن صحيح عيال متين ظلمي قدايا مركا يقدر 4.5 فحلوه قبصده إلهي كبقى اتقوا الله نبض ما ربنا نقو ما كانت على الرقة الصومالية اتقوا الله كنت شاغينا مشرح من حوينا أنا ما ود الله يمحيط الشعب أنا والشغالة يقدر يكتاري ديري من حوينا ربعينا نقضي شغالة من حوينا يدي بتوي معنا يدو
musharax waa intaas walaalayaalow waxaan rabaa inaan shaqaale noqdo oo shaqada aan rabtid maxay tahay waxaan rabaa shaqada madaxweynaha inaan qabto madaxweynahan idin noqonaya shacabkaygow i doorta waa intaa macnaha musharax arjigii lagama qaban guddiga doorashada arjigii kaama qaban laguma soo baarin dambiile inaad tahay shuruuddii ma soo oofisay lacagtii fiigayd ma bixisay shahaadadii inaad musharax tahay ma lagu siiyey maya qabqablaa tahay marka dagaalyahan baa tahay jirri baa tahay ilaahay laga boqo sharciga ha la ilaaliyo ben wey musharax waxa la yidhahda ma jiraan musharax baan ahay maxaan ku dheera waxba kuma dheeri shacabow waxaan leenahay marka walaalayaal dadka dhakhtar hanad oo isaguna gabadha ilmaadeer yihiin oo nin beesha cali suleymaan iga soo wacay dalka sacuudiga doctor aad baad u mahadsan tahay adiga dhakhaatiirta kale iyo dadka Soomaali weyn ganacsatada sacuudiga jooga jaaliyadaha imaaraadka meel walba jooga dadkii waa soo wacayaan ilaa Soomaaliya ilaa Boosaaso ilaa South Africa ilaa Nairobi ilaa Europe baa laga soo wacaya gabadhaan yaa loo kala harin xamdan yaa loo kala harin haddaad nasab tihiin aniga lacag jeebka igu gura idin ma dhihin dumarka Soomaaliyeed lacag aruuriya shanta qaaradood khasama inaad aniga ii dhibtaan no wax badan baad aragteen nin inta lacag loo dhibay lacagtii meel ay aadayn la waayey maya anu contributionka waxaan bixin karo ilaahay dartii aan u bixinaya diyaarna waanahay wixii aan baxsadayna allah iga ajarsiiyo wixii aan baxsanayana diyaar baan inaan baxsado laakiin waxaan idin leeyahay walaalayaalow ganacsatada magaalada Columbus qof walba lacag isku qor ilaahay ka baqa guddiyaha la sameeyay degdega loo sameeyay reer Columbus waa ceebaysantiin ganacsatada dadka ehelka aan si gaar ah anu ehelkan kamid ah si gaar ah shanta qaaradood xamda maxamed axmed xaaji saciid oo nin ganacsado xaaji saciid reer Boosaaso u dhalay reer Boosaaso idinkuna qaaraanka waa idinku qornay soo gurmada gabadha magaceeda ku soo qoraysaan laakiin dadka guddiga ah u soo sameeya idinku u soo magacaaba soo baara dadka wad baari kartaan dadka jooga ee gabadha gacanta ku haya ee ehelka ah ma aha qof iyo laba iyo saddex ma aha dad gacan aamin ah in lacagta loogu dhiibo gabadha ama ayadu inta dilay kudmay lacagtii aysan xogaa isku buuqin xogaa dilay kudmay isku khafifin lacagtii ama maaragtay nin wadaada loo dhiibayo meel ay ka dhacday ma jirto no technology baa la gaaray gabadha magaceeda ku soo qora gabadhaas iska leh laakiin guddi telefoonada soo waca guddiyaa loo sameeyay ceeb male magaceeda ku soo qor xawaalada soo sheeg dhib male haddii ay kudmaayo magaalada aad joogtaan isu waca isu taga dadka Columbus soo wac lawyerka soo wac jaaliyadda Soomaalida soo wac lawyer Ismaaciil lambarkiisu halkan waa nin lawyer weeye nambarkiisu waxa weeyaan lawyer Ismaaciil oo beesha cali suleymaan ah isagana nambarkiisa waa idin siinaya waa 648 waa lawyerka Ismaaciil khayr Allah siiyo oo dadaalay gudoomiyaha jaaliyadda xasan cumar jaaliyadda Soomaalida Columbus ayada nambarkeedu waxa weeyaan 6 mar labaad jaaliyadda nambarkeedu waxa weeyaan 6 Somali community in Columbus Ohio 6 waxaan ku celinayaa lawyerka nambarkiisa Ismaaciil oo nin beesha cali suleymaan oo ilaahay khayr hasiiyo ahaa jaaliyadda oo dhan ba gurmatay xalay saqdii dhexe gabadha la soo celiyay gabadha habriirteedna lagu wareejiyay farihii laga qaaday gabadha la soo baaray lagu wareejiyay gabadha habriirteed baa haysa ma ogol yahay nambarka lawyerku ma diidana nambarkiisu waa gabadha ehelkeeda ehelkii oo dhan baa soo wacaya ilaa Sacuudi Soomaali weyn baa soo wacaysa gabadha lacag baa loo aruurinaya lawyerka iyo jaaliyadda iyo ehelku iyo dhammaantiin is soo waca ninkii lacag u hayowna aniga fariin waa iga tagi kartaa laakiin anigu safar baan ahay gabar kale oo Soomaaliyeed oo muslimad ah ayadana lagu xadgudbay yaan u 3 saac ilaa 4 saac yaan haddan safraya gaariga waxa ii staaran ilaahay subxaanahu wa tacaala Soomaali meel kasta hal u gargaaro dhallaanka iyo hooyooyinka loo gargaaro meel kastoo joogtaan xamda maxamed axmed xaaji saciid oo reer Boosaaso gabadha dhalay nin ganacsato caana dhalay magaceeda lacagta lagu soo qoro Columbus Ohio dadka ehelka aana oo lacagta la kor joogteynaya ama mas'uulka uga noqonayana lawyerka waa idin sheegay iyo jaaliyadii iyo gabdhaha meel kasta dadkii lawyerka in siin doona informationka laakiin guddi loo sameeyo lacagteeda aan lagu cayaarin
waxaan aaminsanahay gabadha 100,000 iyo ka badan in loo aruurin karo waa loo aruurin karaa waa idin siiya numberka guriga loo gado caafimaadkeeda lagu dadaalo quraan ha la saaro niyada loo dhiso ha loo qubeeyo make up loo sameeyo iyo xinigi iyo huruudi anu waxa rijiga la ismarinaya maahane laakiin hurdo badan ha qaadato umul weeye oo ha la baanto faytamiinada ka badan iyo ha la siiyo ilaahay ha looga baqo dumarka mid walba markay dhashaa ayadoo mandheerteedii aan laga jarin baa ninkuna ka cararaya eerkuna banaanka dhigayaan wax u dooda iyo wax wadlana ma jiraan walaalayaal marka safar baan hadda waana baxaya saasa inkaga tagay ilmihii saqiirka xalay saqdi dhexe ayaan soo celin hawshii aan qabanay aad iyo aad ayay u fiicnayd dad baa ka xumaa walaalayaal ha ka xumaanina hawsha aan qabanay waa fiicnayd hawl fiican bay ahayd idinkuna waa ducayseen waana soo gurmateen isu gurmada Yurub boolis igama qaadan karo isu gurmada علماء صباح عامها صباح الشعب صباح إذن كون دبعتك جيسني وشالية النادي وإلماء النادي وعروض النادي ده هذا أقول ماذا لا يركنا لا ماذا يا إيدين جدا وعن عصاني أسيد وكلام إلا سمايو حرمها لو حنانيو rehabilitation centers علماء ده شالية دو على سوتكو عروض اللي يردي طبعا كون ضد لأج أو اللي يرى أبغى كحيرا من الصوت مركز سامد والبريكور كلا خربية مركز سامد والبوحل إربان القدرية انت قبلود اربط لو قدرو لي والنتahay tii wax yar tiraadaba irbad baa lagu duraya waa walanta ilmiina wala qaadanay kaliyana wala kala baxaya wala la gaalaysiinaya xawayar marka isu gurmada meel kasto aad joogtaan Yurub baa lagu leeyahay ilmi war lama qaadanayo laakiin jaaliyad ma jirto America wala qaadanayo war jaaliyadii hal midoob war culumadii maxaa ku dhacay war kuwa dadka soo qixinaya ilaahay ka baqa marka waxaan walaalayaal information kan wada helaysan xaqiiqatan yani hada information waa in si basic Ismaaciil Sawca guddi gabadha loo sameeyo lacag loo aruuriyo lawyerka oo gabadha in adeerkeeda waa in siiyay asagana guddi iyo loo sameeyo lacagtaasna si amaana magaceedana lagu soo qoro ilaahayna khayr ha idin siiyo lawyer Ismaaciil Sawca wixii information waa kaas waa idin siiyay mar labaad lawyerka numberkiisu waa 6 4 8 4 4 نعم dad badan baa soo wacay oo diyaar u la inay dhaqaale iyo lahanti ay gabadha ay la garab istaagaan khayr Allah siiyo walaalayaal ilaahay subhanahu wa ta'ala sidii aad warkeeda gabadha u gurmateen jaaliyada Columbus sidii u soo gurmateen jaaliyada qaybada kala duwan gudoomiyaha jaaliyada Xasan Umar lawyerka dumarkii ganacsatadii oo soo gurmateen shalay khayr Allah siiyo idinkuna meel walba shalay tawaad gaarsiiseen ilaahay aan ka ajar siiyo dadka iminka gabadhii haya hooyadii ama habriyarteedo ilmihi hayana ajar ay xasanaad Allah siiyo inta gabadhii ganacsatada iyo ehelka iyo meel walba dhaqaalaha aruurinayo ilaa Yurubna waa idin la socdaa ajar Allah idin siiyo soo gurmada khayr Allah idin siiyo lawyerkana soo waca miskiinka Allahna waxa weeye telefonkii waa iga waxaysmay lacag baan ku soo diraynaa waan idin siiyay informationkii magaceeda ku soo qora gabadha lacagteedana ha loo ilaaliyo lawyerka iyo guddiga kale ha loo sameeyo lacagteeda iyo xaqeedana ha loo ilaaliyo ilaahayna ha looga baqo subhanahu wa ta'ala gurina ha loo gado hana la biiro masruufna ha loo qoro ilmaheedina ha loo socoliyo insha Allah ta'ala aad iyo aad baad u mahadsantiin dalkeena iyo diinteena iyo dadkeena in Allah inoo badbaadiyo ragga Soomaaliyeedna aqliga Allah ku soo celiyo iimaanka Allah ku soo celiyo warxumada shiilka iyo kuwa naar afufka ummadeena isku gubaya isku darayana ilaahay subhanahu wa ta'ala haanu yadikran ummadda Allah ka qabto ragga musharaxiintaana war xishooda war ilaahay ka baqa war waxaan siyaasi ma ah war waxaan waa mooryaannimo war heshiis baa la galay hadda la saxiixayaa doorasho u diyaar garooba musharax aniga waxba ima dheer anaga kuma dheeri waa idinka tagay walaalayaal khayr baan idinkaga tagay ilaahayna hawshan hadda aan u socdo ayadana oo safar dheer Allah igu guuleysiyo wabillahi tawfiiq wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina aamanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri markaan qaylinay isu gurmanay ilaahay barinay ilaahay waa noo hiliyay wa kaas hal habeen gaalada kuma dhaxlin hal habeen kuma dhixin habeen barkiiba maaragtay laga shaqeeyay la soo jeeday la orday laakiin sharciga waa in la waafajiyo yaa lagu wareejinaya ehelkii faray laga qaado la baaritaan la sameeyo background check laga saxiixo waraaqo degdeg loo gudbiyay waa procedure la maro san idin sheegayna sharciga caruurta waa ilaaliya waxa la protected class of citizens hatta booliska laftiisa aad u mahadsan yahay sababta caruurta wadanka waa la difaaca hooyooyinkana waxaan leeyahay shiishada iyo xishada iyo darogooyinka iyo walaalayaal iska ilaaliya oo yaan idin siinin oo nimankan daroogada cuna iska daaya oo ka dheeraada oo maaragtay hadii ay ku idmaayo yaa la idin balaynin oo maaragtay is ilaaliya oo caruurta dayicina oo ilaahay uga baqa oo sabra oo gabadhii dhibaataysanay jaaliyadaada dadkaaga imo dhawaaq noo imow aan kula gurmano ha qarsanin tii ilmaha laga qaadanaya jaaliyada u tag dadkaaga u tag waxaad qarsataa waa ku qarsadaan
انت سنين كجتري وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دتك الشرع الدفاعي وحكم ده سجارش عروضة children seniors كدتك واوين disabled persons دتك عريانك emotionally challenged individuals وصومالي أوردن قف أبي ويدي أنت الجورد اللي هذا لا داعي ولا بابي مسكح هذا لقى خلينا يو religion كدتك والو إلى عليا minority دين تين وإلى على شيء دتك قالوا إن لا دجن إلا إلى عليو color ما كوا أنا كنا جميد قالوا بيجمع كوا أنا جميد كوا قال كان أمانة noogu yimid oo amnigana warsaday ama nala soo degay ama martida noo ah ama fiisa aan siinay waa la ilaaliyo kalar iyo qabyaalad iyo race iyo jins iyo wadankan waa la ilaaliyay inaguna qabyaalada citizenshipka iyo dhalashada waa la ilaaliyay dadka haliyada waa la ilaaliyaa qof waaridkii ka dhaxlay cudur waa la ilaaliyaa sakane ala kulli intaasaan kaga tagay allah u gargaaro telefoon aad fara badan baa igu soo dhacaya marka khayr ayaan idin rajeynaya walaalayaal وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين كنت تقول علي يلا سفر بانا نمضي.